barnaamijka ka qayb noqdaan inay jiraan laakiin waxaan isku dayayaa in aan bal dib ugu noqdo oo aan howlahaas aan dib ugu noqdo insha Allah oo meesha aan badan ka raadinayo aan dib ugu soo noqdo insha Allah aad baan idin soo dhaweynaya mar kale to caawa martida aan idin wado dhanka chatka insha Allah aan ka arko soo dhaweyntiina dabcan su'aalo badan baa isweydiinaysaan war qofkan uu yahay qof xagee laga keeni karaa caawa qofka idin wado waxa weeyaan hadii la haydmo Maxamed Cabdi Cawil oo runtii record dhigay xalay aan ku faraxsanahay caawa inuu baankana la saaran yahay runtii idinka oo dhanna aad isweydiinaysaan bal horta dhanka chatka aan ka arko soo dhaweynta Maxamed Cabdi Cawil ninkaas waa ina qabsaday ma sha Allah ninkaas marabadba ma su'aaluhu haystaa warninka hana laga qabto luuqa waxa lagu soo qoriyaa kuma jiri karo tartankan ninkana waxa weeyaan su'aalaha usoo sheegtaan bal waxaan rabnaa su'aalo badan inaan weydiino insha Allah Maxamed Cabdi Cawil aad baan ku soo dhaweynayaa soo dhawow insha Allah xiisada qaybta dambana waxaan ku soo dhaweyn doonaa insha Allah oo qayb ka qaadan doona hadii la haydmo liidarkiisa runtii soo saaray gacantan ku haya dabcan de كل قف بكتير سينهاي طبعا نيكا صوت وانتابية دكتور هند أدب السلامة يا دكتورة السجن حسن دقيقة دم إن شاء الله أيانكم مستناسين دونا محمد عبد عول هذه مقلسيد عدك الصفراء أدب كوس الدنيا مركهرة سلام وعنده هاي إفرح ما شاء الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله محمد أدب نوقف أحسن هاي inaad caawa igu casuman tahay anaga dhan ugu casuman tahay barnaamijkeeni kulliina waa wada leenahay qof gaar ah ma lahan hadana teamka Sunforex madasha Sunforex aad baan ku soo dhaweynaa marka hore waan dhawahay Ifraax ma sha Allah shukran jazakallah ما شاء الله inagu maanta waa isla hadalnay inta badan qofka marka aan ku casuumay barnaamijka inta aan idin keenin waxaan isku dayaaba inaan horta hadaan qofka aan anigu marka toos aan soo qoon inaan bal xoogaa isa soo barano oo isla sii hadalno marka hore si ay u qurux badnaato barnaamijku ما شاء الله محمد aad baan ku soo dhaweynayaa maxamed hadda waa level 4 xalay waxaad ka gudubtay imtixaankii tartankii ardada ayaad ku guuleysatay bal inta aan tartanka u galin waxaan rabaa marka hore dadka isbar bal Maxamed Cabdi Cawil magacaagu baan naqaanay bal meesha aad joogtid iyo cidda aad tahay dadka isbar insha Allah bismillah magacaygu waa Maxamed Cabdi Cawil oo jooga Muqdisho dhigtana Sunforex kulliyada macnaha dhigtana Sunforex waxaan ku soo biiray dabayaaqadii July haddana waxaan ahay level 4 marka waa intaas ما شاء الله يقرأ له هذا نير باي قصي محمد ما شاء الله عاد بان فرحسنها إن تكملت هاي تيم كسونفوركس أرض وعد عدد كملت هاي إن ليفل وحبر شو حد من السالة ليفل 4 بل كورن مركز كوسو بيرس تيم كقاب نوعية أيضا نقصو بيرسته فوركس waxaan horta qaab nooceeda waxaan ugu soo biiray markaan Forex ku soo biiray waxaan ugu soo biiray ciil iyo xanaaq baa ugu soo biiray ma garatay aadi waad la socotaa Soomaaliya waxa ka dhacay haatada ka dhacday ummadda islaamka miskiin iyo roolaba wixii loo geystay aadi ma sha Allah maadaama marka jabkaas badan dhibaatadaas aragtay noola geystay baa marka research aan sameeyay aan ogaaday horta wax in la baran karo inay marka saasa ugu soo biiray marka Sunforex oo ma sha Allah oo awalba YouTube-kii waxa siitay engineer Jaamac Maxamed Jaamac aan kala socday oo aan QuickBook iyo casharada siitay aan ka dhageysan jiray marka wasaas ما شاء الله runtii waan ku faraxsanahay in horta adduunka qof marka uu rabo inuu wax sameeyo waa inay baahi ku kulifaysa ay jirtaa aad baan u faraxsanahay team ka mid noqotay wixii aad filaysayna aad heshay mar kale waxaan kula ku soo dhawo teamkaagi bal marka ay noqoto dhanka waxbarashada dabcan trader baa tahay ardayna waa tahay qaab noocee ayaa tradingkaaga iyo ardaynimada aad isu waafajisaa horta hadda arday ma ihi marka waa qof shaqeeyaan ahay marka badanaa markii oo shaqada jaanisaan ka helaa marka badanaa suuqaan awoodda saaraa khaasatan habeenkii maba uga kiciyo habeenkii
micnaheedu waxa weeyaan trader baa tahay full trader trade gareeya baa tahay oo signaladiisa iyo suuqiisa isagoo ka shaqaysta صح ها وصح maasha allah marka ay noqoto aan usoo noqono dhanka tartanka ardayda imtixaamaadka la gelayo qaab noocaas kusoo diyaarsaa imtixaanka horta imtixaankan nolosheeda aad buu wax uga bedelay waayo berigii IML oo aan ku jirnay cashirada badana akhriska hal mar haddaa aqriyaba ku noqon jirin cashirka waayo waxaaba go-aankayga u ahayaba hal bil dhanba inaan ku dhameeyo forex markaas marka alxamdulilah markii dambe oo revolutionka dhacay dee oo son forex iyo IML aan kasoo guurnay oo annaga aan noqono dad gooni u istaagan kadib baa markaas sitee lugayga ayay fadhiisteen oo aan markaas cashirada xoogga saaray injineerka kheyr allaha siiyo asagana uu 7 saac walbaba aan loo kala kici jirin markaas haddii ko markaas forex ay bilaabato awal hore waxay ahayd iska orod level 3 level 4 hal bil ku gaaray markaas kadib aan marka koow soo bilaabay aan level 1 ka soo bilaabay level 2 ku xijiyay soo marka badanaan waxa sameyn jiray marka akhriska xoogga saari jiray oo cashirka injineerka markuu aqrinayo 3 mar 4 mar ku soo celin jiray su'aalaha aan iska weydiin jiray marka sifo markaas aan badanaan hadda marka allaala markii uu hataa imtixaanka aan ku jirno hataa wallahi waxaa moodaa inaan qalbigiisa ku dhex jiray waxaan dhihi jiray injineerka cashirkan levelkan cashirkiisa caawa cashirka diyaariyey imtixaanka habeenka ku xiga intuu ka diyaarin doonaa waa qiyaasan jiray waa si qiyaasan jiray marka waxaa is dhihi jiray maadaama hadda basic cashiradaas maadaama ardayda la weydiiyey haddana habeenka dambe muxuu ku weydiin doonaa injineerka ardayda marka waa si prediction jiray macnaha suuqan sidiisa banaan buu ogta prediction waa forecastna waa prediction qof wax huwa ma jirto waa possibility iyo prediction marka macnaha suuqan jiha u diraysa jihada hadduu ka aado alxamdulillah shukru hadduu ku aadi waayna ma dheheysid maxuu aadi waay ila wixii waxaa laga rabaa dulqaad moogta marka saasee marka imtixaanka igu fududaaday badanaan cashirada xooga saari jiray haddana hataa weli level 3 hataa cashiradooda ma aqrin ilaa imtixaankaas uu ka dhammaanaya level 1 iyo level 2 ku noqonay marka insha Allah aad baan ugu faraxsanahay tartankan ardayda loo dhigay inaan ku guuleysto waxaan kale u mahad celinayaa ablaynkeyga dhammaan inta qof oo luuqa igu soo dirtay fariimo dhiirigelin ah aad baad u mahadsantihiin runtii adigana markaas haki aad ii soo diraysay oo warqadaada aa arkay saa u farxay ma malayn kartid mar labaadna waa kuu mahad celinayaa ifraax maasha allah aniga qudhaydu jaaniskan waa raadinayay inta badan dabcan dad badan baa waxay soo weydiiyaan ifraaxay mooriya ahaan jirta su'aalahan xaggee weriye nolosheeda ma aan noqon su'aalahana hadda aan ku weydiinayo buug iguma qorna mar kastaba sheekada inoo socota ama qofkaas marxaladda aan ku jirno unbay su'aaluhu iiga yimaadaan marka aad kusoo jirto imtixaanka ayna ii socoto inaan jimcaha qabanay doono madasha oo caawa ah oo ilaahay nagaasay alxamdulilah ayaan sii xariiqday inaan ku soo raadsho oo aan programkan kuga casumo sababtoo ah waxaa inta badan ku arkaa tartankii habeenkii hore iyo tartankii caawaba in maxaa la yidhaahdaa ay ardayda isweydiinayaan ninkani ma su'aaluhu haystaa talow ninkani muxuu qabanayaa marka su'aalahaas oo dhan baa in haystay sidaas darteed ayaan kugu soo casumay aad baad ugu mahadsan tahay qaabka aad ii soo ajiibtay runtii waqti intee la-eg ayaad gelisaa waxbarashada markaan usoo noqono dhanka waxbarashada tusaale ahaan saacado badan miyaad gelisaa saacado badan miyaad wax akhrisataa waad trade garaysaa mise totally waxba ma akhrisid haddeer wallaahi horta dheegi wuxuu ka koobayaa 24 hours 7 hours bas le wax akhrinba 14 hours kale wax akhriyaa maasha allah sababtoo hataa markaa shaqeynaya hataa shaqada markaa ku jira hataa haddii aan helo hataa 1 hour break haddaan helo hataa computerkayga meeshuu iyaala waa iskala furanaa soo marka 3 saac markii aan zoomka ka baxno oo 4 saac oo kale 4 saac markaan ka baxno oo kale ugu dambeeyo macallimiinta markaas wax akhriso fadhiista ilaa iyo ugu dambeyn 8 saac wax akhrisaa ku gaaraa saac markaan salaad subax kadib ma usoo fadhiistaa ilaa shaqada ka aadaya 2 saac wax akhrisa oo fadhiistaa marka suuqaana waxaa loo kun gaari karaa inaan wax baratid le
maasha allah injineerka waxaan arkay meesha soo qoray oo leh ninkan anigu falaqayn iga sii galaa sida suuqii ayuu wuxuu analyze iga sii sameeyaa meeshaan ka imaanayo hadda waxaan u malaynayaa markan tacticada waa la ogaadayo injineerka qudhiisu inuu naqshada cusub la soo bixi doono insha allah markaan usoo noqono dhanka su-aalaha waxaan leeyahay oo imtixaanka habeenkii la qaado tartanka hadda la qaadanayay arday badan baa waxay isweydiinayaan computer buu isticmaalaa ma mobile buu isticmaalaa sidee bay ku dhici kartaa in su-aashii oo injineerka afkiisa ka soo bixin uu jawaabta soo tuuro maxaa isticmaali jirtay horta habeenka uu imtixaanka jiro habeenada kale wuu iga duwan aniga sababtoo markuu imtixaanka jiro maalintii shaqada 10 saac ka soo baxaa xaafadda marka u soo dhaqsadaa maqrib markaa tukado ilaa casho laga tukanayo ma oo kicibo computerkayga u yaala casharada marka revision ku sameeyaa badan hadda ninka waxa hadana oo waxaan bartay maviskaan bartay oo type marka mararka qaarkood hataa wallahi waxaa dhacdo inaan hataa markino su'aalihi hataa macalinka markuu u qorrabo inaan niyadiisa ku jira camal muddo ana isla yaababo habeen hadda waxaa xasuustaa wallahi anoo su'aal macnaha niyad ku hay niyad anoo ku hay engineerka afkiisa ka soo baxday markaas badanaa marka waxaa sameeyaa marka su'aasha macalinka waa sii qiyaastaa مش ardayda imtixaanka dambe isticmaali doonaan inkastoo ay tahay wax ii gooni ah laakiin dhib ma lahan in la iga faa'iidaan jeclahay waxaa sameeyaa badanaa hataa su-aasha hataa intuu injineerka sheegin hataa waxaa sameeyaa waaqtaa markaa qorto kadib koobiyaan dhaha waa iska titiraa marka injineerka markii afiis ka soo baxday kadib koobi bastaa dhaha marka waa sii diraa maasha allah halkaas waxaan u malaynayaa caawa siro badan baa laga helay injineerka qudhiisa codka gadaal baa ka siin doonaa ardayda marka waxaad leedahay warnimayaa la iska can fududeeyo waxa weeyaan sii qiyaasta wax wallahi waa runtii ha wax in la sii qiyaasto way fiican tahay annaga dhinaaba qiyaas ku shaqeynayna soo maahan dee suuqa siisbnam forecast dhan waa qiyaas qof maanta inuu soo istaaga dhigi kara ma jirto maanta suuqaas taa su'aada nin dhigi kara ma jirto qiyaastii marka waxay ku imaada marka waxbarasha la isdheeriya marka qofka inuu waxbarashada waqti geliyo wax barto macallimiintiisa la xiriiro yani hadda inkastoo hataa uu ablaynka hataa doctor Hanad Ablan iyo hataa macallimiintu kulligood waa la xiriiraa macallin aan la xiriirin ma lahan hataa suuq aan falanqeey hataa macallin u diraa macallin iga fiiriyaan dhahaa waa ii soo jawaabaan runtii mar allaala markay ii soo jawaabaan kadib ay dhaan maasha allah runtii aad iyo aad baa ugu farxaa markaasaa dhiirigelin isii geeshaaba oo aan dhahayaa niihow haddii meesha lagaa rabaa taagantahay sii wad marka maasha allah macallimiinteenana kulligood khayr allaha siiyo runtii qaabkii Somforex ku socota marka arkay mararka qaarkood hataa waxaan niyeystaan iyo qaabkii meeshan xaaladda uga socota iyo kala sin daacadda iyo wanaagga ka jiro yaaba idinkugu bedelaaba dowladda hadda jirto sababtoo qof qadi lahay maba jirto waxaa arkaysaa macallin 4 saac subaxnimo kugu soo fadhiistaa 9 saac ay ku gaarsiinayaan ayagoo dana kale leh oo qof walba maanta laga yaabaa inuu macalinkaas dan kale leeyahay dan kale ka dhacdo asaga wax wuu bartay wuu awoodaa inuu banaankaas maro oo ileen maanta nin macnaha oo waqti geliyo oo wax barta waay laakiin wuxuu ka doorbiday walaalihiisa Soomaaliyeed dhibaatada ku jiraan waa la socotaa Soomaaliya wax ka jiro waxaa kaloo haddana waxaa si dheer waxaa soo baxay niman burcada soo baxeen burcad ku dhahayaan $100 waxa kaaga sameeynayna $1,000 yaa adduunkaas intee lagu sheegay $100 $1,000 laga sameeynay suuqan annaga hadda waa liyaaba jira awal hadda markaa suuqa soo gal arkay $100 lot size la isticmaalaa marka aragtid $1,000 iska day taa wax u dhawaata laga sameyn karo bish marka macallimiinta khayr Allah siiyo runtii habeen iyo maalin haddaa soo jeedo haddaa si aadaan jiifo haddaan salaad tukanayo haddaa hataa wadada marayo niyadda iga jiraan mar walbana waa u duceeyaa maasha allah khayr Allah siiyo macallimiinteena maasha allah aad baa umahadsan tahay annagana waan kaa guddoonnay dhammaan macallimiinta dhan oo ku maqlayaan ingiliiska baanalka saaran tusaale ahaan nin dhallinyara baa tahay xamar baad joogtaa walow marka muqdisho dhowaan baan ka imid laakiin ay waqtigiisu ii saamixin inaan arday badan dhallinyaro badan aan is aragno ardayda kugula jirta tiimka Somforex khaasatan ku hor inay tartanka dambe ka soo qayb galaan amaba raba inay horumar ka sameeyaan maxaad kula talin lahayd horta ani taladeeda ugu wanaagsan oo hadda aan arday u sheegi lahaa waxay
hadda badan hataa waxaa arkay hataa arday badan oo aan luuqa iska shakaysan oo dhahaya niho casharada level 4 maxaa ku dhacay ma diyaarsana raali waxaan level 4 hadda imaan hataa waxba igama jiro level 4 horta maxaa lagu soo gaaraa ardayga inuu level 1 level 2 iyo level 3 horta inuu macnaha sida oo faataxa camal u xifdiyo Soomaa qof maanta faataxa garaneyn ma jirto waa may marka anigu waxaan dhihi lahaa marka tusaale waxaan dhihi lahaa oo walaalihii Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa ani hataa nafsideeda iskula talin lahaa horta inaan waxbarashada awoodda saarno oo aan wax baranno oo markii baranno kadib aan miraheeda gaari doonaa sababtoo waa sax qof aan wax baran waxba ma ahan marka ardayda waxaan kula talin lahaa inay intermediate haddana waa aragtay waa level ugu fiican ee forex waa intermediate markii laga hadlayo sababtoo risk management ardayda lagu baraa ardayga sidoo macnaha haddii hataa suuqan waa khatar badan yahay suuqan sidiisa banaan malaayiin waa laga faa'iidaa malaayiin waa lagu khasaaraa marka level 1 iyo level 2 haddii laga soo dhisay basic iyo technical haddii laga soo dhisay level 3 ardaygu inuu awood saaraa uu akhristaa risk management u barto ardayda waxaan kula talin lahaa inay waxbarashada awood saaraan ee macallimiintoodana ugu dambeeyaan suuqan insha Allah ما شاء الله aad baa u mahadsan tahay runtii waa talo wax ka ool ah waxaynu iskugu soo biishoonaysaa in wax la barto runtii qofku haddii uusan wax soo akhrin waxna uusan baran casharada macalinka uu diyaariyeyna uusan soo diyaarin imtixaanka haddii xataa uu aad u fudud yahay oo lagu weydiinayo waa maxay forex kaliya lagu yidhaahdo aad garan kartay aadan laakiin soo akhrisan kama jawaabi kartid marka imtixaanka haddii la rabo inuu qofku la baro noqdo inuu ku guuleysto muhiimadda ugu weyn waxa weeye in wax la barto maxamed cabdina wuxuu yidhi 7 saacadood ugu yaraan ayaan geliyaa waqtigayga ka mid ah inaan wax barto maasha allah ilaahay ku barakay waqtigaan ku leenahay runtii dadaal fiican ayaad samaynaysaa ma kugu jirtaa mustaqbalka inaad u shaqaysid waari maysid wax ka haro bismillah yaa heli karo waaba irmuudabe inaan sofor hadda waa ka mid ahay waliba inta nolosheeda ka dhiman inaan dhex joogaan rabaa inay geeri iga wada muushi inaan meel kale uga dhaqaaq ma rabi sababtoo waa dad qalbi wanaagsan oo dad jecel islaamnimada ku weyn tahay soomaalinimada ku weyn tahay marka maasha Allah sonforex waxaan dhihi lahaa waa iftiinka nolosha dhammaan macallimiinteena Allah noo daay waana ka mid noqon doona insha Allah sidaan hadda u dadaala iyo juhdiga aan bixinaya arkaa insha Allah waa ka mid noqon doona sonforex macallimiinteeda maalin dhow insha Allah riyada ugu weyn waa inaan soo hor fadhiisto ardayda anoo macnaha wixii aan bartay walaalkayga iga dambeeyo u sharaxay ما شاء الله runtii waa hami aad u sareeya in qofku waxa uu bartay uu gudbiyo dhammaan leaderska baanilka saarana halkaa waxay u joogaan qof kasta uu heli karo inuu wuxuu barto uu iska shaqaysto oo gurigiisa iska fadhiyo laakiin waxaa naga go'an haddaan nahay dhammaan tiimka sonforex arday macallin leader qofku doon ha noqday in qof walba wixii uu faa'iiday uu walaalkiis kala qaybsan insha Allah aad baa u mahadsan tahay maxamed cabdi cawiil runtii aad baan ugu faraxsanahay inaad ka mid ahayd barnaamijkeena khaaska ah dib ayaan kugu soo noqon doonaa insha Allah daqiiqadaha u dambeeya waxaan rabaa inaan u yeero Dr. Hanad Maxamed Cilmi oo Jarlaqsi jooga دكتورku waa ninka dabcan ka dambeeyay inuu maxamed halkaas soo gaaro دكتور waan kusoo dhaweynayaa kusoo dhawow madasha ما شاء الله معلمة إفراح aad baad u mahadsantahay leaderska ardayda chairmaniska dhammaantoodba aad baan u salaamaya ما شاء الله aad baad u mahadsantihiin sidoo kale ardayga maxamed cabdi cawil isaguna aad baan u salaamaya aad buu u mahadsan yahay ما شاء الله دكتور marka hore hambaliyaan ku leeyahay sida maxamed baan ugu hambaliyeenay runtii marka qof tiimka ku soo biiray khaasatan ardayda ku soo biira ama dadka gacanta ku soo biira uu meel sare gaaro u dhad waxa dareemsaa farxad bal ka waran dareenkaaga xalay markii uu guuleystay maxamed maxaa dareenkaaga bal nooga sheekay ما شاء الله معلمة إفراح aad baad u mahadsantahay mar kale maxamed aad buu u mahadsan yahay isagana waan ugu hambaliyeynayaa guusha uu gaaray aad baan ugu faraxsanahay mar walba qofka aad soo saarto miraha aad soo saarto ama dadaalka aad bixiso meesha uu marayo mar walba waa ka warhaynaysaa maxamedna si dhow baan uga warhayay ardayda dadaalka badan hor u socodka ayuu ka mid ahaa wuxuu nagu soo biiray 20 July hadda waa level 4 maxamed waxaan xasuustaa waxyaabaha guushiisa keenay inay ka mid tahay soo xaadiritaanka zoomka subaxii xiisada koowaad ilaa habeenkii xiisada ugu dambaysa mar walba zoomka sida aan u galaba maxamed waa xaadir
marka aad baan ugu faraxsanahay inuu ku guuleysto sidoo kale ardayda kale ee guuleysatay iyaguna aad baan ugu faraxsanahay uguna hambalyeynayaa tartamada dambe ardayda isu diyaarinaysana sidoo kale aad baan usoo dhaweynayaa weliba maxamed waxaan ugu darayaa tartanka soo socda in roose laga siiyo jaanis la siiyo ardayda kale soo socota micnaha waxa weeyaan miyaa maxamedow waad soo baxday maasha allah next time tartanka hanoo soo gelina ardayda kale aan soo saarno maxamed waxa waaye maasha allah maadaama uu dadaalkiisii tartankii ugu horreeyey ee easy way line academy ay qabatay uu ku guuleystay tartanka soo socda nasiina baa loo diraya maxamed ha iska nasto halka inkastoo soo taagan yahay maxamed uu leeyahay nasasho ma jirto haddana nasiira in loo diro waxoogaa iska soo nasto waa si wanaagsan inkastoo aniga waxaa la leeyahay ninka jaalaha la siiyo roosaha laga daayo maxamed waa iska kaftan insha allah tartankan uu kasoo qayb geli karaa maasha allah dhiirigelin ayay u noqon doontaa insha allah arday badanna waxaan rajeynayaa inayba ku dayan doonaan marka waxaan leeyahay caawa tibis badan baa bixisay laakiin soo diyaarso tacticadaadaan ugu darayaa insha allah next challenge-ga dambe aad kaga qayb qaadan doontido insha allah bal tibis kale la imow oo aad haddee lagaa yaabo oo mucjisa insha allah tan hadda waad sheegtay ardaydan waxaan kula dardaarmayaa bal tibiska uu ina siiyey maxamed caawa insha allah soo dabaqa oo next time suka ay keena dhammaan ardayda teamka Sunforks doctor aad baa u mahadsan tahay dabcan anagoo dhan waxay noo tahay sharaf in ardayga soo baxa aynu ku faani karno arday badanna ay soo baxeen runtii magaca Sunforksna maanta meel walbo adduunka la joogo ay u taalo wanaag iyo sharaf qof kasta oo magacaas maqlana uusan ka diideen runtii anaga intaas un baa inagu filan haddaynu nahay teamka Sunforks ama leaderska dhammaan waxaan leeyahay ardayda meel kasta joogtaan waan idinku faanaynaa waan soo bixi doontaan insha allah anagu minaha aanu beernay waa idinka kaliya waxaan rabnaa waxa weeyaan in qof kasta isku filnaansho uu gaaro masha allah doctor maxaa tala siin lahayd ardaygagaas ama maxamed cabdicawi maasha allah aad baad umahadsanta maclumed ifraax mar kale intaan talada siinin cawil iyo sidoo kale ardaydaba waxaan usoo jeedinaya ardayda insha allah pageka akademiyadda in subscribe ay saaraan easy wayline academy ee horteena ka muuqda shaashada screenka si waxyaabo badan iyo updateyo badan halka ay ugala socdaan marka su-aashaada aan usoo laabto tala gaara oo maxamed aan siinayo ma jirto dhammaan ardayda Sunforks academy easy wayline academy waxaan kula talinayaa marka hore inay waxbarashada xoogga saaraan maxamed cabdi cawil maalintii uu nagu soo biiray ilaa maanta maalmihii hore wuxuu xoogga saarayay sidii uu leveliska uga gudbi lahaa levelada waxbarashada kan ka gudub midka kale usii gudub midka kale usii gudub cashiradii soo diyaarin daraaddeed marka tartanka muhiimadda uu lahaa waxaa ka mid ah cashiradii in si degan loo soo diyaariyo cashiradii lasoo xifdiyo si fiican loo soo fahmo adigoo kaliya aanan ka fakarayn levelkan ka gudub ee levelka kale u gudub waxa waa in macna ahaan aad fahamsan tahay waxa aad soo marayso waxaan xasuustaa isagoo beriya dhow nala jooga support and resistance strategy weli telefonkayga ayuu ku jiraa lacago uu soo falanqeeyey oo istaraatiijiyadda ugu horreysay injineer maxamed jaamac khayr alaasi uu ka hadlay ahayd casharadana ku jirtay maalintaa ilaa maanta maalin walbo lacag uu soo falanqeeyo uu isoo diraa waan arkaa marka qofka marka dadaalkeeda uu geliyo aad u dadaalo ardayda dhammaantood waxbarashada ay ku dadaalaan casharada ay ku celceliyaan nowd ay ka sameeyaan maskaxda bini'aadamka waxaa waaye way iska buuxsamaysaa waxyaabo kale baad ku mashquulaysaa laakiin waxa aad qorto ee diyaariso bay kaaga duwan tahay sidaa daraaddeed inaad waxbarashada xoogga saartaan nowdadka aad samayseen aad dib u akhrisaan xiisadahana aad soo xaadirtaan tibiska ugu weyn ee maxamed uu ku guulaysto waa soo xaadiritaanka xiisadaha xiisada ugu horreysa ilaa midda ugu dambaysa waa nin jooga marka qof kasta oo jaanis helaya xiisadaha macallimiinta soo xaadiraan wax un baad ka faa'iidaysaa xataa level 1 basic marka la sharaxayo markaad soo xaadirto waxay kuu noqonaysaa wax aad taqaano laakiin lagugu sii celiyey aniga hadda khayr alaas iyo maxamed jaamac injineerka markuu sharxaya casharada basica maalmahii lasoo dhaafay ee liveka ay ahaayeen xiisada markaa soo xaadiraya si fiican baa ugu raaxaysanaya waxaa isleeyahay yaa gadaal kuu celiyo level 1 kugu soo bilaabo basic ama injineerka uu sharxayo sida fudud ee uga dhaadhicinaya ardayda iyo casharada uu sharxayo macaantooda ayaaba ku raaxaysanaysaa marka time adag waa lasoo maray laakiin hadda maasha allah ardayda waxay haystaan wax kasta iyadoo la fududeeyey aad loo fududeeyey
dhammaantoodna waan rajaynaya inay ka faa'iidaystaan waxbarashada iyo aqoontan xoogga la saaro aad baad u mahadsantaha macallimad ifraax maasha allah runtii waa tale aad iyo aad u wanaagsan waxaan rajaynayaa dhammaan ardayda inay qaateen taladaas qayimka aadka u wanaagsan doctor aad baa u mahadsan tahay marka waxaan kuleeyahay hambalyo dabcan barnaamijka hore waad uga soo muuqatay madasha intii la socotay intii aan la soconna waxaad kasoo heli doontaan haddii arabtaan inaad barataan doctor hanad iyo taariikhdiisa youtube-keena sahal software ayay taalaa aad ka heli doontaa insha allah mar kalena waan soo casuumi doonaa si ay refresh nagu noqoto bal dadkii gadaal kasoo biray ay u bartaan doctorka doctora aad baa u mahadsan tahay mahadsanid macallimad ifraax masha allah haddii aad rabtaan inaad su'aalo weydiisaan tusaale ahaan 2 ama 3 su'aaladood ardayda ayaan la hadlayaa maxamed cabdi cawil inta aanan fasaxin ama xiisada dhamaanin dhanka chatka ishaan ku hayaa kusoo qora si aynu markaas su'aashaas uu inooga jawaabo isaga qudhiisu uu la socon doonaa codkana uu soo furto ugu jawaabo waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo our chairman ila soo dhaweeyo chairmankeena injineer maxamed jaamac sahal oo runtii tacticadiisa dee hadda isaga qudhiisa loo baahan yahay inuu bal khadka wax kasoo bedelo falanqayn badan baa laga galay insha allah soo dhawow engineer waan dhowahay walaal ifraax wiil aad baad u mahadsan tahay adiga iyo barnaamijkan quruxda badan inoo daadiiseenba sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa macallimiinta iyo liidarada panelka saaran ardayda qaybaheeda kala duwan maasha allah dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa dhowr commenti un baan raacin doonaa insha allah xiisada commentiyada waxaan horta u horreysiinayaa marka ugu horreysa ardayda waxaan rabaa inaan u sheego channelkeenan cusub easy wayland academy arday kastaaye ardayda wixii riixay waa okay subscribe saaray inaad riixdaan subscribe saartaan gamalalkaad furataan wuxuu idinka caawinayaa habeen walba zoomkaan duubno halkan ayaan si khaasa ula soo dhigi doonaa haddii ilaahay qadaro waayo channelka sahal software isagana innaga iskale laakiin culum kale IT-ya iyo luuqado kale ayaa ka buuxa saa darteed waxaan rabnaa ardayda forex ku taxanay inay halkan si gaara forexka wixiisa ay easy wayland academy ay uga helaan insha allah marka arday kasta hadduu hore u saarin haddeer ha saaro gamalalkan ha furtay waxa uu la soo geliyaba uu helo habeenkuu maqan yahay wixii la duubay ee dhaafayna uu markaa dib u daawado insha allah intaas waa intaas waxaan rabaa inaan dhammaantiin mar kale maasha allah hambali wada niraano dee wiilka fagaxda fagax weyni badan lahayne maxamed cabdi cawil maasha allah fagax ninkaas odaga ah maasha allah hambali ha la yidhaahdo xaqiiqatan ninkaas waxa weye record ayuu markaa xidhay tartankii ugu horreeyey bishii dhowtaan qabanay ayuu ahaa wuxuuna noqday weliba dhibco dheeri ayuu ku guulaystay استراتيجيونك استعمالين وكشك يعاو وضي وانو فلقين وكسمين جري اناليس تلو حقيه كسوعتا باشو mid kale IT-gana inuu wax garanaya iga muuqato wuxuu inta waxa sii qortaan koobi garayso baan iska masaxa jaadarta marka hal jawaab uu haystaa hadii su'aasha aan soo qoro soo weydiiyo su'aalka jawaabka noqotana jawaabtii buu qori hadii marka oo leeyahay halkii maraan hadlayo anigu wuxuu haystaa probability ah 2 jawaabood hadda sirta idin faafaynaya 2 jawaabood buu haystaa ma sha Allah soo qora mid wuu qoray harbu saar uu koobi garayso uu masaxay computerku uu hayaa dabadna jawaabta labaadna keyboard gacanta u saaran markay su'aasha afta ka soo hadii tii uu maleynay noqotana waa uu soo tuuri hadday noqon weydana muxuu haysaa probability gacanta u diyaarsan tii labaad marka double uu haysta sidoo kale de ardayga raba inuu la tartamo maxamed cabdi cawil oo kale waxa laga doonayaa waqti intee leeg man galiyaa barnaamijka iyo waxbarashada maxaa ablankiisu qiray zoom to zoom subaxiisa zoomka inta soo galo ayuu ka u dambeeyay waxay soo marxaati kama aniga lafteedu waxaan marxaati ka ahay maalmihii u dambeysay hadda tartan ku jiray oo aan si gaar ah soo baranay awal hore ardaydu bay la mid ah ma aqoon maalin walba wuxuu suuqa iga soo diraa falanqayntiisa suuqa hadogow waxaan filayaa level 4 ayuu maraya casharada level 4 wali ku hadda gacantan ku hayaba falanqaynta suuqa intuu ii soo diro ayuu really xaqiiqdan hadhow markuu suuqa galo wuxuu ii soo sawiraa wixii lacagtaas ku dambeysay hay ma la tartami kartaa markaa qofkaas هذا ترايد كورن ترتن كيان سوق ولا ترتميا impossible معقول ما marka ma nin dadaalaya oo zoomkiis macallimiinta la galaya oo falanqaynta la falanqaynaya oo ideyada ka qaadanaya oo markuu lacagta gelin falanqay sawiraya oo markuu galo sawiraya oo markay dhamaato lacagtaasi uu ka baxa soo sawiraya ma sha Allah soo qora ku dayasho mudan xaqiiqdi arday kasta oo sanfar kisana ama easy wayland academy taan ka doonino waa taas weeyaan waa waarmayso wara ka haro dhawaan waxaan rajaynaysaa hadduu ku socdoba macallimiinta orod buu ku imaanaya cid baanalka ka hortaagani ninkaas waxa weeye maxaa oran jirteen waxba lagama qaban karo Soomaa ninkaas maxamed riyada rumayn macallimiinta ka mid noqdo wax hortaagan ma jiraan xawaaraha hadduu ku socdo muhiimaddu sidoo kale sheekadiisan dhageysanay waxa ka mid ahay arday baa ku mashquulsan level 4 fiidiyoodii meeyay laakiin muxuu yiri maxay war 1 iyo 2 iyo 3 hadda iska dhigto 4 ku wajacsanaanaya taas aruna haddaad ku mashquushid aan qolka ka gudbo faas ku gudbo adoo wixii fahmin
adeeg ka go'aanta hadhow xagaad bustaha dhigan level 5 dhaafi maysid warkaas macadiya ama level 6 bood bustaha dhigan doonta ka dhix ka maysid laakiin waa qofka guusha rabay waxa weeye waa qofka level 1 sida faatixada soo diyaariya level 2 sidoo kale ka soo dhex baxa level 3 ka soo dhex baxa ma fahad level 4 ka dhex baxa dabadna 5 iyo 6 iyo 7 marka bilbad ku dhaafisaaba wax ku waabin karaay ma jiraan marka waxyaabo badan ayaa laga nood gareyn karayay maxamed cabdi cawil xaqiiqatan ilaahay barakeeyo leenahay ma sha Allah na u soo raacay mar walba videogana waan duubayaa si ardayda ay dib u daawadaan YouTube kaasaan soo dhigi doona insha Allah dib uga dhageysan doontaan waxaan kala rabaa inaan sheego tartankii hadda horta bishii koowaad aan qabanay ilaahay fadligiisa sidii aan rabnay uu ku qabsamay alxamdulillah rabbil caalamiin halka ardayda wanka geli doona ayaa ballanqaadkayga muxuu ahaa soo qori karaya Easy Way Lane Academy liidarada ballanqaadkooda muxuu ahaa ardayga koowaad maxaa la siinay free waxbarasho ayaa la siinayay Soomaaliya free waxbarasho ayaa la siinayay alxamdulillah rabbil caalamiin ardaygii iyo labadii arday ee 1 iyo 2 iyo 3 gaba galayba free ayaa la siiyay akademiyada marka loo duceeyo saddexda ardayba bishan waxay ku dhigan doonaan free waa 1 iyo 2 iyo 3 marka ma sha Allah soo qora ardaydaas 2 gashan waxay Aasiya bile oo laftigeedu dhibco fiican haysatay ayaa ayana bunda fiican 2 gashay oo joogtay magaalada Boorama soo kale Cabdullaahi Liimaan ayaa isagoo garow jooga ayaa sana kaalinka saddexaad galay labada arday kalena iyagana ma sha Allah u raaciyay insha Allah waayo kamay dhacayn maxamed cabdi cawil waa ku dhaganaayeen wadarkiisan meelaha qaar koodina aad ugu dhaganaayeen marka saddexda arday ayaa ahayd waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto tartanka soo socda si uu ekaanayo inaan hordhacid ka siiyo way tartanka xigmado fara badan ayaa ku jira saan marar badan sheegnay oo ay ka mid tahay ardayduna casharada ku xifdiyaan innagu waxaan rabnaa in ardaydeena suuqan ay si xaraga leh lacag uga sameeyaan iyagoo bilaa walwala bilaa cabsi ah taas waxay ku keeni karnaa in waxbarashada la tayeeyo la xoojiyo waxbarashada la xoojiyo waliba waxaan kaloo rabaa inaan isku bishaareeyo ardaydii sugaysa level 4 habeen dambe haddii ilaaha idma haddaaya level 4 qaybta advancega ee waliba qaybta market structure-ka 22 chat patterns ayaan ku talagalay waxaan hadda duubay oo diyaarsan almost 16 chat pattern way diyaarsan waan duubay kaliya waxay u dhiman waa ilaa iyo 6 meelahaas waxaan rajaynayaa caawa haddaan soo jeedo ilaa beri geli koraan dhammaynayo habeen dambana waxaan rajaynayaa inaad channelkeena Easy Way Lane Academy inaad ka heli doontaan insha Allah waa inoo habeen dambe intaana aan hortiin keeni doonaa waayo marka taana ku bishaaraysa insha Allah level 4 saas ku dhaafi doontaan ardayda diyaarka habeen dambe qorshaha ku darsan heli doontaan insha Allah waxaan raacinayaa tartanka soo socda soo ekaan doona haddii Ilaahay qadaro diyaar ma loo yahay diyaar ma loo yahay fursaddan aan rabaa inaan ka faa'iideysto maadaama Zoom-ku caawa uu buuxo inaad isgaarsiisaan ma rabaa aad u diyaar garowdaan ayaan rabaa tartankaas horta kow xilligiisa caadiga ah inoo bilaabanaya laba habeen buu wiiga lahaa soma labadee buu lahaa ayaa soo qoraya wiiga laba habeen buu lahaa labadiisa habeen waa la garanayaa soma labadiisa habeen baa horta qaadan doonaa tartanka soo socda halkaa wax ka bedeli mayno insha Allah sidoo kale tartanka soo socda taas labada habeen ayuu markaa qaadan doonaa bishoo dhan uu socon doonaa biidnillah su'aalaha waxba kama bedeli doono waxay noqon doonaan 5 su'aalood oo kaliya 5 su'aalood kaliya ayay noqon doonaan qodobkaasna meega haysaa wan isoo qor hadda labada qodob faantay qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa qodobkaas waxaan shan u leeyahay ardayda qaar baa markii calool xano soo qorayay markii su'aalu dhamaadeen macallin badida ay ugu hayay marka shantaas insha Allah loo kala baxaya waaya qodobka saddexaad tartanka wuxuu noqon doonaa haddii alla idmo qaybta intermediate ayaan kusoo korin doonaa intermediate-ka ayaan kusoo korin marka waxaa lagu tartami doonaa basic technical iyo intermediate waxaana tartami doona dhammaan ardayda oo dhan saddexaas levelna waxaan filayaa videoyada iyagoo dhammaystiran inay idin yaaleen akademiyada easywayland.org ama Sunforest Academy inay dhex yaalaan ayaan rajaynayaa oo caawa aad diyaarin karaysaan waa hagaag qodobka saddexaad aan ku daray waxaa weeye tartanka soo socda waxaa lagu bixin doonaa lacag ardayga wanka gala real account-kiisa waxaa loogu shubi doonaa $200 oo lacag haddii alla idmo ardayga lambarka labaad gala real account-kiisa waxaa loogu shubi doonaa $150 ardayga kaalinka saddexaad galana real account-kiisa waxaa loogu shubi doonaa $100 oo lacag marka ardayda ka cabanaysa xitaa waxaan real ku shubana ma haysano iyo suuqii ma geli karno waxa weeye de 1 2 3 haddii laga qaado nabadgelyo warkaas wacdi ay sooma ducada u soo raacay halkaan u socono inaan gaarno liidaradana iyo macallimiintoona loo soo duceeyo intaas ayaanu kaga baxaya aad oo maasantiin guul baan idin rajaynayaa back waxaan dib ugu celinayaa Farxa wiil masha Allah ما شاء الله injineer Allah ku barakeeyo runtii wad ma qasan arday waxa weeye waxba laga ma qaban karo injineerka ku dhiis waxba laga ma qaban karo Allah barakeeyo leenahay ma sha Allah loo soo qoro
ardayda dadaalas maasha Allah loo soo qoro dadaalkana dhammaanteen baa laydinka rabaa hadda waxa weeyaan war kale ma lahana waa waarimayside war kaa hor inaan u wada shaqeyno weeyaan insha Allah tibiskina waa laydin siiyey insha Allah next challenge-ga ama tartanka labaad bilaami doona dabcan inta uu kasii adkaanayo de markii lacag la yiraahdo xoogaa de way kasii adkaanay sheekadu iyo waxa weeye hadda challenge-gu waa sii adkaanaya maasha Allah aad baa masantahay injineere waxaan rabaa hal su'aal aan weydiiyo inta aan barnaamijka gabagabeynin maxamed oo wili codka u furan yahay oo Zoom ku jira dhammaantiin waxaad ka codsanayaan maxamed maasha Allah soo qortaan hambalyo soo qortaan ardayda la tartamaysayna aad u soo qortaan ayaga qudhoodu maasha Allah way wada dadaaleen muhiimadu ma ahayn in kaalinta koowaad la galo laakiin muhiimadu waxay ahayd waxa horta la bartay ma la fahansan yahay waxa aad qofku ka jawaabayo horta ma fahansan yahay marka insha Allah dhammaan ardayda waxa la hambalyo maasha Allah loo soo qoro maxamed waxaan inaan weydiiyo waad maqlaysaa tartanka hadda injineerka iclaamiyey iyo waxyaabaha lagu bixinayo diyaar ma u tahay inaad tartanka mar labaad ka qayb qaadasid ma u diyaarsan tahay insha Allah diyaar baan inaan ka qayb qaato hadduu ilaahay nafta nagu simo maasha Allah waad maqlaysaa hadda ardayay maxamed waa diyaar hadda waxa la idinka rabaa adkeyn badan hadda la soo adkeeyo typing la sii barto tibiska hala sii diyaarsado maxamed hadda hala saaxiibo luuqa hala iska laalusho hala yiraahdo buniyaha tibiska nasiisi wax badan laga sii barto لاعبka saxda laga sii barto waxba laga ma qaban karo maxamed aad baa u mahadsan tahay maasha Allah Allah ku barakeeyo waxaan ku rajeynayaa insha Allah guul iyo horumar inaad ka gaartid dhammaan ardayda waxaan rajeynayaa guul inay gaaraan leaderska banka saaran aad iyo aad bay boqolkiiba mahadsan yihiin dadaalkoodu ma yara runtii aad bay u dadaalaan Aasiya Bile oo xal runtii gacanta gashay Samson Ahmed ay soo saartay oo ah upline-keeda liideradeeda maasha Allah gabdhuhu runtii way ka cadcad yihiin markii loo fiirsho tiim ahaan marka la fiiriyo qudhayadu ma yaraysano marka insha Allah waxaan rajeynayaa next time maxamed oo in lagu qabsado oo gabar soo baxdo oo aan sidaan kale ku wareysto barnaamijka madasha gabar soo baxda ee gabar liideradeeda ah gabdhaha leaderskan waxaan leeyahay hadda la dadaalo gabdhihi hala soo saaro oo gabdhaha waxa weeyaan hala mintido insha Allah dhammaanteenba waxaan noo rajeynayaa meel kasta joogtaan horsocod iyo guul aad baan u mahadsantihiin caasha narkaa qosol soo qoraysa caasha aad baan kusoo dhaweynayaa maasha Allah soo adkay baan ku leeyahay waxa la soo adkay insha Allah maasha Allah xiisadeeni inoo soo bilaabatay caawa 9 fiidnimo intaas inoogu soo gabagabeyn doontaa insha Allah caawa kale oo jimcaha xiisadii labaad ma jirto meel kasta joogtaan waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin inta gadaalka daawan doonta ama ka dhageysan doontaan waxaan leenahay soo dhawaada haddaan hay tiimka Sonforkisna waxaanu meesha ku hayno way iska caddahay waa tusoo istaabsi ardayda wada aragtaan leaderska wada aragtaan wax idinka qarsoon ma jirto kaliya go'aan la qaato qof kasta oo caawa dhageysan doona gadaalka dhageysan doona fiidiyogan waxaan leeyahay go'aan qaado kuna soo dhawo insha Allah maxaa la yiraahdaa waxaanu meesha ku hayno kayf aad baan ku salaamay maasha Allah dhammaantiin mar kaleeto waxaan leeyahay habeenku ha idin wacnaado meel kasta joogtaan dibna waxaan ugu noqon doonaa bal dadka aan isleeyahay way xiiseynayaan dad badan waxaa jira xiiseynaya runtii inay ka qayb qaataan barnaamijka madasha laakiin anigu ma ogaan karo oo de sida maxamed uu yiri qalbiga maxamed baan sii saadalaya runtii waa laga fiican yahay baa isla ma garanaya ma hadda iraahdo maamanimona fahma waxay oranaysaa adigu qabsatay laakiin hadde sida dhalinyartaas waxaa dhici karta inaan degdegaas aan ahayn waxaan ka codsanayaa dhammaan arday hadduu jiro leader hadduu jiro qof niyadda ku hayay in uu barnaamijkan ka qayb qaato lambarkayga waad helaysaan qolka dhan baa ku jira haddaad ifraax awil dabcan inta badan waa la yaqaana ila soo xiriir aad baan kusoo dhaweynayaa si gaar ah luuqayga igu soo qor qofkii haya talo ama tusaale raba inuu barnaamijka kusoo kordhiyo boqolkiiba boqol waan soo dhaweynayaa haddaad leader tahay taladaada u baahanahay haddaad arday tahay u baahanahay haddii aad xataa dadka meelaha naga dhegeysanaya tahayna iisoo qor commentiga inoo soo qor insha Allah wixii commentiga iisoo reeba maxaa la oran jiray shareta iyo like iyo commentiga samahayn hadda waxa way commentiga inay soo sii insha Allah wixii tare tusaale ah igu soo kordhiya qofkii u baahan inuu ka mid noqdo si gaar ahna ha ila soo xiriiro aad baan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh suunku inoo xiran yahay intaan ku kulmayno mar dambe